waxaanu haatan ka soo duulaynaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaan ku sii jeednaa magaalada Antananarivo oo caasimadda dalka Madagascar. asxaabta in ka badan 4 saacadood baan sii socday magaalada Addis Ababa iyo dalka Madagascar. hotel baan ka degi doonaa intaasi kadib waxaanu soconay gudaha magaalada Antananarivo waxaana ku muuqanaya dooga quruxda badan ee magaalada maadaama dalkan uu yahay mid rooban xilliyada kala duwan ee sanadka. Madagascar ayaa jasiirad ku taala koonfurta bari ee qaaradda Afrika waxaana qiyaastii ku nool in ka badan 28 milyan oo qof. khudaarta kala duwan noocyada dalagga iyo geedo gaar ah sida geedka vanilla ayaa ka mid ah wax soo saarka beeraha ee ugu weyn dalkani. hore waxaan maqli jirnay vanilla geedka vanilla la yiraahdo waa ka mid ah ice creamada bishaadada chocolaatooyinka waxyaabaha la cuno dhan geedka laga sameeyo waa aad aan ugu yahay waxa weeye geedka dalka Madagascar sidoo kale cadarada qaar baa laga sameeyaa vanilla nin badan oo geedkii vanilla laftiisa gaadiidka yaala jasiiradani badi maaha kuwa casriya sida caasimadda Madagascar Antananarivo laga sameeyo waa tagaasi oo runtii ka dareemayso marka raacayso inaad ku soo xasuusinayso waqtiyo hore oo cajiiba sida la sheegay Francisca sameeyay jiray maadaama dalkan Francis hore u dhimay jiray luqadda laga hadlay asriga marka laga yimaado luqadda labaad waa Francis runtii waa qofka wada iyo tagaasida darawal kale marka ay ku sheekeynayaan waxa uu muuqdaa kuwa aad u faanay maadaama qoranaya mid kasta oo Minnesota sano 4 sano aad buu aragtay deegaanada Soomaalida laga helo tagaasida waxaan kala soo 4 sano la isticmaalay waxa weeye magaalada Antananarivo gudaheeda qaasba lagu iibinayaa waxa weeye sida Soomaalida oo kale ay badankood qaad qoraan cajiib. dadka reer Madagascar ayaa kuwa soo dhaweyn badan cuntada laga cuno gudaha jasiiradda ayaa gabi ahaan baa mid aad uga fog cuntooyinka laga cuno deegaanada Soomaalida iyo dalalka Kaagdhow. iyadoo taasi jirto haddana meelaha qaar waxaad ka helaysaa cuntooyin dhadhankooda ku soo jiidanayo. gudaha jasiiradda Madagascar ayaa waxaan kula kulmay Soomaali degan in ka badan 80 sano oo iga warramay waayahoodii nololeed ee halkani balse barnaamijka kan ku xiga aad si fiican uga daawan kartaa daawade. maalmaha soo socda ayaan ku sugnaan doonaa jasiiradda Madagascar oo ah dalka 46aad ee ugu weyn dunida. la soco muuqaalo cajiib maalmaha soo socda kuna xidhnow Ayub Show.